يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ. وبه نستعين على امر الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ورين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقيمتي اللغات أي كلن في كسر سنة فهم الصحة يكون في الشريعة. برنامج كاس وبرنامج جارة والشيخ محمد الشبلي ولقى سنة قيب كميدة عدد جامعة يددك دينتا شريعة البركة. برنامج كان قيبتي سهرة أيها هرب بحي قدر نحوفر إن قيبتي سلا. أنت عن برنامج أوجري برنامج واحد سلسلة قابين مركز كأبو بكر يحرون تبعك الباريستا يأخرين تأو جامعة عمر عيسى. أنت أنا الشيخ أوجري وحن كلمة سينية مامورة حرونتا عبد السلام إسماعيل حاشعير سلو. بسم الله وبعده. إلهي ومحل يسوك كيني دمانتين انتينا ميشا تيمي waxaan isugu nimid ciwaankaas dabiga inoogu qoran oo ah fahamka saxda ah ee dhaqangelinta shareecada islaamka inaan ka wada faa'iideysano maraakista ama ha noqdeen markaska Abu Bakar ama markaska Al-Hidaaya xarunta anigu aan ka socdo oo jaamac Umar Ciise dhammaantayo waxaan isu kaashanaynaa waxa weeye si aan macluumaadka u wadaagi lahayn dadka ehelka u leh u ahana ay suurtagal aan uga dhigi lahayn haddii ilaahay nala garab galo in dadkii u baahnaa iyo dadkii ehelka u ahaa inay dadka wax u sheegaan isu ay sahlanaato qaabka isu arki lahaayeen. kulankaana wuxuu ka mid yahay sida maxamed sheegay waa kulankii labaad. waxaan rajaynaynaa kulamo badan oo noocadaana inaan qabanqaabino. anigu haddaan xarunta awdaama ciisana waxaan rabnaa harbiya hamayn insha Allah inaan garab istaagno wixii ku saabsan dacwada iyo ummadda wax u qabadkeeda. waa mahadsantii soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bismillah. kulanku wuxuu u socon doonaa sidii caadadeennu ahayd oo qaybta hore loogu dhacay. sheekha ayaa kusoo dhawaan doona isaga oo guudmar ku samayn doona qodobadii uga hadlay qaybtii hore iyo su'aalo ka yimid kasoo qaybgalayaasha qaybtii hore jawaabahoodii oo waqtigii hore uu ku yaraaday. markaa kadibna wuxuu u geli doonaa sheekhu mawduucana galabta aynu ku fadhino. intaa kadibna innaga ayaynu usoo wareegi doonaa wixii su'aalo ah iyo tafaalon mawduuc sheekhu ka hadlo oo ra'yiga inaad ka dhiiban doontaan ayuu barnaamijku inoogu socon doonaa. sheekh ayaan kusoo dhaweyn doonaa. falyatafadal anigoo uga mahad celinaya waqtigiisa qaaliga ah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي حان كبر يا خير كنونا وافتشيو مركزتون شوق نبنا دين تهنية دوية دينا إن حفظيو وعن كعذر دارنا يا وحوغي حباب iyo xogay xasaasiyadan ka cudur daaranaya insha Allah taala sidii xiriiriyaha Maxamed Nuur Shira uu sheegay waxyaabihii hore iyo hadhaagoodii ayaan hormarin doonaa. fadhigeennii hore oon filaya 7 iyo dhowr beri ama 10 beri inay ka soo wareegtay waxaynu kaga soo hadalnay qodobo dhowra. waxaa koobaad aan kaga soo hadalnay haddii la yidhaahdo kitaabka ha lagu dhaqmo, shariicada ha la ysku dhaqo, shariicada ha la ysku xukumo, diinta ha la ysku maamulo, diinta ha loo noqdo haddii la yidhaahdo waa nolosha qofka muslimka oo dhammaystiran. hadday dhaha tahay dhinaca caqiidadiisa iyo cibaadaadkiisa in ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga loo noqdo sala allahu calayh waalihi wasalam, hadday tahay nolosha adduunka ee dhaqaalaha
in sistamka iyo maamulka iyo qaabkuba uu noqdo mid waafaqsan diinta iyo shareecada islaamka oo aan ka baxsanayn xuduudii shariicada loona qaabeeyey hadba qaabka shariicadu ay ogoshahay wixii shariicada ka baxsanna laga reebay oo laga saaray wuxuu noqonayaa xaaladaha qoyska guurka reerka qaab dhaqanka xuquuqda ay isku leeyihiinna in la waafajiyo shariicada islaamka waxaa ka mid a in la waafajiyo qaabka maamulka maxkamadaha iyo cadaaladda xeerarka xuduudda iyo ciqaabyada xuquuqda dadka wixii dhex maree dhaawac iyo dhibaato ee dhex mara ka dhalanaysa dembiyada dadku ama iyaga dhexdooda ay kala galaan ama ay rabbigood ka galaan qeybta xuduud iyo tacaasiirta loo sameeyey iyo qaab maamulka iyo maamuuska maxkamadihii cadaaladduna inay shareecada islaamka waafaqsanaadaan qaabka maamulka iyo xukunka iyo xuquuqda siyaasadda iyo hoggaanka ay leeyihiin ama lagu leeyahay iyo xuduudda iyo xorriyaadka dadku ay leeyihiinna sidoo kale la waafajiyo shariicada islaamka waxaynu soo sheegnay qeyb ka mid a haddii lagu koobo inay sawir khaldan tahay waxaa kaloo adoon ka soo hadalnay masaa'il su-aal ku yimid maantana aan u fadhina qeybta dambe oo ahaa shariicada ku dhaqankeeda iyo xukunka kitaabka ilaaha lagu xukumo iyo waxa u dhaxeeya sharcigii oo qawaaniin la samaysto ama wax laga bedelo iyo xukumka sharciga ha la ysku xukumo aayaadka suuratulmaa-ida ba waxaynu soo marnay shariicada ha lagu dhaqmay iyo kitaabka ha la ysku xukumaay way ka guda weyn tahay mas'alada jus-iyada qawaaniinta oo kaleeta ah waana masalada maanta aynu arki doono insha allahu tacaala waxaynu ka soo hadalnay aayaadka suuratulmaa-ida fa ulaa'ika hum ulkaafiruuna iyo waxa la midka ah inay labadii kufri kii weynaayee diinta looga baxayey iyo kii yaraayeen diinta looga baxaynin ee kabaa'irta waaweyn ka midka ahaa intaba inay soo gudagelayaan oo aayaduhu ay xaalaadkaasoo dhan camimayaan waxaynu soo marnay oo kaleeto oo su-aalihii ku yimid aharkii cabdillaahi bni cabbaas laga wariyo oo kufrun duuna kufrin ahaa inuu asaxay halkaa markaynu maraynay dalabadii timid qaar baa hadal tilmaamay ah aharkaa haddii uu asaxo waxaan markii tilmaamay inay jiraan rag mucaasiriin oo isku dayey waxna ka qoray inay daciifiyaan isku dayey laakiin aan marin dariiq cilmi aan marin iyo dariiqii loo mari jiray riwaayaadka iyo axaadiid iyo aahaarta markii sixada laga hadlayo inay xaqiiqadii iyo dariiqii cilmiga ahaa si cad uga lexdeen qodobkaas baan rabaa wax yar inaan dul istaago waxaa kaloo aynu ka hadalnay oo isna su-aalaha waxyaabaha ay keeneen ahaa ahar cabdillaahi ibni mascuud laga wariyey oon markii sheegay fahamkiisa alfaad badan inuu leeyahay oo kala duwan fahamkiisana culimmadu kan ibni cabbaas usan waxba ka duwanayn iyadana waxoogay caddaynteedan raba inaan isdul taaga maadaama labadan meeloodii ahar meela aada dadka ugu meeraystaan oo lagu wareegaysta ay tahay intaas kadib waxaa kaloon ka hadalnay oo su-aalihii jawaabahooda ku yimid wakhtiguna ka gaabnaa qodob ahaa cibaado kastoo ilaahay kayrkii loo leexiyo kufri akbara ma aha qayb baa kufri asqar ama shirki asqar ah tusaalaan ka tilmaannay laakiin intaa ka badan baan rabaa inaan waxoogay iyadana ka tilmaamo insha allahu tacaala inahaas kadib ayaa waxaan u gudbi doonaa mowduuca waxaan saa u leeyahay saddexda meelood aan dul istaagayo mas'alada cibaadaadka shirki asqarkana dad badan baa gadaal waxaa ka soo baxday dad badan oo dalabatulcilmi ay kuba cusbaydba marka inaan si khalada loo qaadanin ama aan khalad loo tarjaminin loo fahmin darteed baan rabaa inaan qeexid iyo faahfaahin ka bixiyo waxoogay tilmaamaysa baabka ma wada dulmari karo masalada aharka ibni cabbaas aharka ibni cabbaas wuu asaxay min qowli ibni cabbaas inuu yahay aayaadkan in la weydiiyey qisadii najdat alxaruuri najdat bni naafic su-aashiisii xaruuriyada iyo khawaarijta ma aha aharkaan ka hadlayno ardadiisii dalabadiisii taawuus uu ka mid yahay baa si toosa u weydiiyey aayadda fasirkeeda
markaasuu wuxuu yidhi laysa bilkufri aladii yadhabuuna ilayhi kufriga ay moodeen ma aha dadku marna wuxuu leeyahay waa kufri laakiin kufri billaahi wa malaa'ikatihi wa rasuulihi oo kaleeta la mid ma aha aharkaas cabdullaahi bni cabbaas waxaa ka wariyey markaan soo ururinno majmuuca min alxaqaa'iq baan ku ururin karnaa kow aharka horta sidiisaba cabdullaahi bni cabbaas waxaa ka warinaya taawus ibni kaysaan waa xaqiiqada koobaad midda labaadi taawus ibni kaysaan waxaa ka warinaya hishaam ibni xujayr iyo cabdullaahi ibni taawus oo isagu u dhalay taasna waa xaqiiqo ma dhaafaanoo intaasuu aharku ku wareegayaa markaynu hoos uga soo degno xaqiiqada saddexaad aynu gaadhaynaa waxay tahay aharka hishaam ibni xujayr laga wariyey keliya sufyaan ibni cuyeyna ka wariyey lafdigiisana la yskuma khilaafin sanadkiisu culimmana waa xasan bay gaarsiiyaan qaarna dacfi yaroo xifdiga hishaam ibni xujayr ku jira ayay ku duraan laakiin waxaan khilaaf ku jirin inuu baabka mutaabacaadka iyo shawaahidda hadduu galo la aqbalayo xaqiiqada afraad ee lama huraanka inay dadku ogaadaan waxay tahay riwaayada labaad ee cabdullaahi bni taawus waxaa ka wariyey keliya macmar ibni raashid al-umawi macmar ibni raashidna waxaa ka wariyey oo keliya sufyaan athawri iyo cabdirasaaq ibni hamaam asancaani labadoodaa iskhilaafay marka riwaayada sufyaan athawri ruwaadda dhammaanteed sufyaan athawri can macmarin can cabdillaahi bni taawusin can abiihi can ibni cabbaasin riwaayadoo dhan marfuuc waaye uu leeyahay waa kufri aayaddu laakiin laysa kaman kafara billaahi wa malaa'ikatihi wa rusulih amaa riwaayadda cabdirasaaq akarka ruwaadda cabdirasaaq ka wariyey aharka riwaayadda way saasay u wariyeen cabdillaahi bni taawus can abiihi can ibni cabbaas laakiin way kala qaadeen oo riwaayada cabdirasaaq leeyahay ibni cabbaas wuxuu yihi laysa huwa hiya bihi kufrun wey kadib cabdillaahi bni taawus baa yidhi walaysa kaman kafara billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubi malaa'ikatihi intaa dambe cabdillaahi bni taawus baa iskale kutaabta qaarkood baa ku cileeyey riwaayada intaa dambe ibni cabbaas iskama lehee cabdillaahi bni taawus baa iskale intaa markaad ogaato waxa meesha yaalla waa macmar riwaayadiisii macmarna sufyaan athawri iyo cabdirasaaq baa ka warinaya waxaa habboonayd isbarbar dhigna sufyaan athawri iyo cabdirasaaq sufyaan athawri horta wuxuu la aqraan yahoo la da-aha macmar waana shuyuukhda ninka la yiraahdo cabdirasaaq ibn hamaam shuyuukhdiisuu ka mid yahay miisaanka laba nin oo la wada saari karaaba maaha cabdirasaaq akhirkiisi waa indhabeelay waana waayeelay wixii loo meeriyuu iska sheegi jiray sufyaan athawri waxaa la waqti ahaa ragga winka taqaanaan ee ruwaadda aada loo yaqaanee shucba oo kaleeto shucba ninka keliyaas gacan u taagay ee siriya nin kale hadduu ikhilaafaani dan kama lihi laakiin ninka waxaan sheegay wax ka duwan hadduu sheego aan ka noqon waa thawri nin aanu jiro wax u hambayn oo haddii uu khilaafo maanta aan dib u istaagay isagaa jira walidaalika yaxya bni maciin wuxuu leeyahy isagu maa khaalafa axadun sufyaana fii shayin ilaa kaana alqowlu qowla sufyaana ma dhicin buu ciday sufyaan thawri isu khilaafeen wax oo sufyaan laga helay ninka shucba iyo ragga lamidkiihi ay bannaanka u dhigeen xifdi iyo itqaan macmar oo aakhir xifdigiisa markii horena aan gaadhiba karin marka labaadna aakhirkiisii xaalad xataa garasho iyo isku darmar la soo daristay marka koowaad laba la isbarbar dhigi kara maho labadooda keliya haddu had iskhilaafi lahaayeen kaana alqowlu qowla sufyaana waxaa sii xoogeynaya riwaayadii hishaam ibni xujayr baabaa la sii jirto oo kusii darnan haddayba riwaayadii hishaam ibni xujayr iyo ay israaci lahaayeen cabdirasaaq isku darkooda sufyaan baa ka xoog badnaan lahaa laakiin maxaa cabdirasaaq maxaa isugu darmaday sufyaan oo ka xoog badan iyo hishaam oo ugu darmaday qaacida alxadiidiya cilmu alxadiid waxay keenaysaa riwaayada qowl ibni cabbaas inay saxiix tahay riwaayada cabdirasaaqna shaadda ay tahay in lagu cileeyo maaha taasi waa qadiyadda koobaad oo dadku inay fahmaan ay u baahan yihiin wey aharka ibni mascuud waxaan sheegnay maalinka dhaweyto inuu alfaad badan leeyahay aharka ibni mascuud cabdillahi ibn mascuud 5 baa ka warisay asxaabtiisii ah qayb asaaniidooda dacfi baa ku jira
laakiin alfaadoodu kuwa kale la mid tahayoo alfaadda ka asaxday afar lafdi baa afartuba asaaniid ama xasan ama saxiixa ku yimaadeen taasoo ku tusaysa inay riwaaya bilmacnaa iyo tasarufu ruwaad ay ahaayeen lafdiga koowaad ee ka asaxay waxaa weeye in la yidhi aayadda horta tafsiirka waxaa lagu keenaa akaaluuna lisuxti tafsiirka suxtigaa lagu keenaa asal ahaan asuxtu rishwatu iyo asuxtu alrishwatu fi ddiin lafdigaa labadaa isa saaran oo hal lafdi ah way ka asaxday intaa keliya in la yidhaahdo sufyaan thawri baa riwaayadkiisa qaarkood fasirayo arishwa fi ddiin markii la yidhi wuxuu leey yacni fi lxukmi fi diinta waxaa looga jeedaa yacni fi lxukmi cabdirasaaq baa ka warinaya oo sheegaya lafdiga labaad wuxuu leeyahay asuxtu risha ama asuxtu rishwatu labada waa jiraan xaaraantu suxtiga la sheegaya waa laaluushka qulnaa fi lxukmi xukunka haddii lagu kala qaatana laaluush haddii qaadi intii la laaluusho uu xukumana wuxuu yidhi daalika alkufru way sugan tahay daaka alkufruna way jirtaa daaka kufrunna oon allahayna waa jirtaa waxaa sugan iyadoo intaa intuu yidhi uu ku gaabsaday iyo iyadoo laleeyahay aayaadkii waman lam yaxkum buu raaciyeyna intaana waa asaxday waa siiqada labaad ee cabdillahi ibn mascuud ka sugan siiqada saddexaad ee ka sugan waxaa weye mascuud waxaan weydiinay masruuq baa leh can isuxti ahuwa rishaa fi lxukmi maxaakim la laaluushaa markaasuu wuxuu yidhi maya ma aha waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa huwa faasiqun ninkii xukumka ilaahan ku xukumin fa huwa faasiqun intaa inuu yidhi laakiin suxti waxaa la yidhaahdaa qof la dulmiyo intaad garab istaagto markaad hawshii la soo dhammaysay waxoogay kuu laabay baa suxti iyo xaaraan la yidhaahdaa lafdigaana waa ka saddexaad ee ka sugan lafdiga afraad ee cabdillahi ibn mascuud ka sugan waxaa weeye in la weydiiyey can iljawri fi lxukmi lafdigu sidaa weeye can iljawri fi lxukmi baa la weydiiyey markaasuu wuxuu leeyahy daaka kufrun haddii xukunka jawr aad xukunto kufrun waayo waxaa la weydiiyey can isuxti wuxuu yihi waa ninkaad bahawl u qabatay kadibna hadiyad ku siiyey haddana lafdiga sidaasa laba riwaaya waa ku sugan yahay in aayaadkii la raaciyo waman lam yaxkumti iyo mararka qaarkood oon duruqda qaarkood la raacin ibnu mascuud horta alfaada afarta ah baa majmuuca riwaayaadka ka sugan marka la ysku ururiyo intaa kadib waxaa muhim inaad ogaato ibnu mascuud riwaayaadka la ysku ururiya labadaba waa muhim inaad ogaato marka koobaad haddii alfaadii ibnu mascuud laga wariyey waxaa ugu badan masruuq ibn alajdac waxaa alfaadan iska leh masruuq ibn alajdac baa ugu badan oo duruq fara badan lagaga wariyey haddii wa itixaadu lmakhraj waxay yidhahdaan hal nin baa ka soo sheegay ninkiina ruwaaddii ka warisay intaasoo lafdi oo mid walba sanadkeedu sugan yahay ka sheegeen masalada waa riwaaya bilmacna qaar aljawru fi lxukmi yidhaahda qaar alrishwatu fi lxukmi yidhaahda qaar ikhtisaariya oo rishwa keliya ku gaabiya qaar ku dara aayaadkii iyo xukumkii ku dara qaar aljawru fi lxukmi yidhaahda isku soo ururiyo riwaayaadkan riwaaya bilmacnaa iyo tasarufu ruwaad waaye sax ma aha hal lafdi aduu intaad ka dhex doorato ood istiraahda kana aleelahaysaad rabtay tilmaamaya kuwa kale inaad ilqayso kuma jirta meesha kufriga alwat inaad qaado kan alwadanina ka tagtaay waa nooc waa waxa taxakumka yidhahdaan waaye imaa inaad tarjiixisa alfaada fm ya inugu xoog naga qaadanayaan u malaynayaa masalada labaad ee muhimka iyadana inaad ogaato ma cinda aimatina ma wax farqi ay leeyihiin dalaalada macnaha aharka ibni cabaas iyo ibni mascuud jawaabtu waa maya aimatu sunna maba kala qaadin wax macno kala duwanoy u fahmeenna ma jiro ilaa bacdu almucaasiriin muxdathiinta oo isku dayey maahane walidaalika alkhalaal fi sunna labadan ahar ibnu mascuud iyo ibni cabaas wuu isdaba dhigay baab buu ku qoray kitaabu sunna juska 455 iyo wuxuu sameeyey baab la yidhahdaa baabu munaakaxati lmurjia murjiada ma la isguursan karaa wuxuu keenay axaadiid fara badaanoo sibaabuhu muslim wasuuqun wa qitaaluhu kufrun man iddacaa gayra abiihi man ataa caraafan aw kaahinan man ataa imra'atan fii duburiha ilaa aakhirihi laa tarjicu bacdii kufaaran nusuustaa fara badaan isagoo tirinaya buu aharka ibnu mascuud keenay
قداشينا حكى الرأي أثر كان ابن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود الطيرة شرك ليلاد وحنا كدم بياثر عبد الله بن عباس سيدو كلا ابن بطة في الإبانة جزء اللبات طابق اللبات يسدح طبعا محققة باب وحوك كان اللي يراهدو باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج من الملة ذنوب تقف كذا جارسين يسو كفر عن دين تكسارين باب كاسو أثر كين مسعود ابن عباس بكو كان وحكاه الرأي حديث اسم العسر اسم مسعود بن مسعود وكورين يوليه ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله عز وجل ونسعود وكورين كذب أثر كن مسعود بكينيا كذب أثر ابن عباس بكينيا بابكنا وبابك ولذلك أئمدوا مركي السجيين عن الجور إيو ذاك كفر إيو ذاك الكفر إيو مركي السجيين ابن عباس أثر كيسي كمد وانا قاركود آثار وحي كينيان ننها وين قضال وقتك ابن عباس وانت اللي ويديو ولي هذا يسألني عن الكفر بيسكت حيان ومعنى هذو يا وحني والذنوب يا معاصي شرع وكفر كم مقعابي دين تنان كسارين صحابتنا الفاضنا استعماليان لهذا المعنى بيستعمالين مركا اسكت ضيقة أثر ابن مسعود وكدو يأثر ابن عباس اسكت ضي فاشل وي واحد شرا معها انتاسي أي مدي هورا حداد أخرداننا أنا ما أرق أنت أنا أقريه وحثرك ابن مسعود كفهمي معنى كدو ونثرك عبد الله بن عباس ولي ما نعرف اسكو ضيقا مركا يا محاولات كاني وان سلف كيبا وحي يغو هوريي ان لا يرادا ما تفسير كآيات يغو هوريي ان لا اسكو دايا وايا كليه انتاس كدب waxaan soo sheegnay xalaqadii hore inaan niri shirki kasta mukhrij min cibaada kasto ilaahay qeyrkii loo sarfiyay kufri akbar maaha markii la yiri aayadkii suuratu yusuf in al-hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyahu halka markaynu maraynay ba waxa la yiri cibaada lagu tilmaamay marka aniga ninkii waxaan ku yiri وحا عبادة كستو إلهي غير كي الله صرفيها إما كفر أكبر با إذا قار كفر أصغر أجرة طلبة قار كميدا يرمي قار كفر أصغر أجرة وقت يقول عجيز عجيدها سيفضود بان خير قدبني عبادات ك صرفي قوض إلهي غير كي اللي حياي قارنا وكفر أكبر دين تلوغا بحواي قارنا وشرك أما كفر أصغر واي ودينت اللوغا مبح علمادنا markay xaadkeeda ama mid walba meesheeda joogan ay ka hadlayaan ayay sheegan tusaale nabi cali sallam waxa ka soo wariyay xadiis ibn umar man halafa bighayri allahi faqad ashrak man halafa bighayri allahi faqad ashrak ilaahay ghayrka ninkii ku dhaarta shirki buu galay xalafkiya dhaarintu waa tacdiim iyo weynayn nabigu ka reebay ciidan allah ahayn in lagu dhaarto waa reebay ninkii dhaaranay wuxuu yiraahdaa ilaahay ku dhaarta ama iska aamus la tahlifu bi abaikum aad buu reebay dhanka kalena wuxuu yiri ilaahay kaliya mudan marka dhaar dhanka kalena waxa la yiri ninkii ilaahay غيري ku dhaarta faqad ashraka xalafku hadaba waa min jinsi al-ibada ilaahay غيرkii loo sarfiyo loo leexiyay waa hadana waa shirki asghara ولذلك امام الترمذي حديث كان فيه سننه markuu ku wariyay wuxuu yiri وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ أتكين ويه قال نبي الدين الله بحي معها والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم واد قالوا ذي مردهن إله وذين كرهبين بويري إن عموم كمنهيات كمتها حرام تلاقى قرطي وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله هير هذا لفت هذا باشرك الأصغر كي يكون فصيريان مركاسه حري هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء إن الرياء شرك تاسع لمته وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بفسريا
أن قال لا يرائي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة الله يانو عدنا لو ناجنن رياغ يكون فسرين حديثا حلف كنا تاسي لمديهم وير كلغي معها مروزي رحمه الله تعالى في تعظيم قدر الصلاة بحديث كان كو كينيا حديث عبد الله بن عمر فقد أشركه مركاسه وحولي هذا الكسوة السعودة وقد وافقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب لا يكون كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب أهل الحديث جماعة هذه وحين وافقين ذنوب تنقفك قال إنه ندين تكب حيا وصوكسو نقول له أمر لو دردو توبت كين وعينين عين وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها كدب سير الله فصل لها كلا يسوق خلافين لكن تاوي نور عند دين كبح معها قال وحيد دريشة مركا قال تارك الصلاة كانت تنبأ لمته تاوي صلاة الله بعد الرياو رياهنا استوتس كان النبي قال وحيد حديث محمود بن اللبيد إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر شرك غير بان ذي كبقيا قالوا وما الشرك الأصغر محيه قال الرياو استوتس كواي فما كان يرجو لقاء ربه تفسير كي عبد الله هذا الكي إمام الترمذي وكان صومرني نبي قال الشرك الأصغر يسأل كنت تسريحية كانوا مرضوا النبي عدي انت كد مال لوسي داي وما باهنا وحكم إذا حرسية ذا إيو مديدة ذا إيو وحيابها لحرتية حلقة ذا كم إذا نبي وحكسوا إنه يري من حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك وحيابها اللي اسكو آخرين أيو إيه حرسية اللي حيران أيو إيه مديدة اللي يصد غياي شرك واي أي مضمر كي كهاد ليان حتى شروح كتاب التوحيد لبس الحلقة يا مركاد مريسو باب الشرك الأصغر بالغو دريا وحكم إذا الطيارة قف كي روح باسيستو حديث عبد الله بن مسعود الطيارة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل أما أنت عن رهن حديث كي كميته وي الصحدي سير رك بدن الشيخ الباني قدام بي أنت عارك قبان أما سيد البخاري الترمذي رك لمذي سليمان بن حرب راوي هاي قبان أنت ضم وما منا ابن مسعود باكو دري عن رهن قف كان نبات قلبا مشري ويطيارة يا باسيسي لكن توكل كإلهي كاغسي قاده شركي كان شركي أكبر معها وهدير هذا النبي يجرينا لما أنت نقف عن كل عن شركة أكبر ملبو النبي يجري صح معها هدير لي هذا ابن مسعود بايري قف كان نبت قال يا شركة أكبر ما تشيرنا يدنا صح معها لكن من الجنس الشرك الأصغر واي وحكم إذا وحيابها نذر لغير الله وسئال الله قمر موايهن كذبنا قارنا يرى هذا شرك أصغر واي لأنه شبيه بالحلف لا والله وضبوا كشبها حلفك مدوية نارته وحيشة كشبها وحو قفك دون يوكو أتكيا نذرك يا حل نارته منه ويسكشبهانا وكفارته كفارة يمين واي كفارة قد كان ويسكشبهان ولذلك بيراد اسكود ديان إن أقواش ابن تيمية لبدا قولا إسايسته قولا ابن تيمية كسو أروريان إنه شرك أصغرية قولا إساقه كسو أروريان إنه شرك أكبرية سببتنا ضابطك يا تعريفك يا حدك على صاريسة شرك الأصغر يا شرك الأكبر بان لا يسكوا فقصانين انت أقول قوية مركة شرك الأصغر يا شرك الأكبر ما حيث حد فاصلة ما شرته حد ولي اللي يسكر عسان يهي معنا نرك انت عارك يسدح الطريقة وقبضا وحل مره قلت هذا عبادات كان لبو قيبين هنا واحد من جنس الوسائل هي واحد من جنس المقاصد عبادات يجعل لو تشيدو هي عبادات واحد كدم بين لو تشيدو كوا واحد كدم بين لو تشيدو هدي لا غير كيلو اللي هي واشرك ير كوا غاية لو تشيدو هدي لا غير كيلو اللي هينا واشرك أكبره وانا الطريقة دا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رجل مذا أي مران أقوال علماء دي هرا لجسوا جوريان اللي دريشدو لكنها صريحة وهين قالها الكام مرين وحير هذين مصممها هي مقع الشرع كانوا ديننا وحكستا والشرع والشرك أما كفر كم مقع عابي
kadibna dalaa'il loo helay inuusan diinta ka saarayninna shirka iyo kufrigii yaraa waay wax kasta oon dalaa'il kale loo helinna kii akbarka ahaa waay halkaana qolaa martay qolyaha hore markay kuwan ictiraadayeen baa waxay yidhaahdeen sharcigu wax walba afraad ma tiriyo laakiin amhile iyo qaacide lagu jaangooyuu siiyaa kuwan sharcigu shirka asqar ku sheegay kuwo badan oo lamid oo shabaha xukun kale see loo siinayaa muran dheer baa dhex maray qolo saddexaad waxay yidhaahdeen hal yeela innaga tacriif iyo xad bay inaga daaya amhilo unaan uga baxno meesha markaan soo gaadhno tusaale bixinun dariiqada ibnulqayim uu maro qaar mucaasiriintana ay leeyihiin meesha aad baan u baadhnayo waan ku wareernayoo dariiqo ka wanaagsan dariiqada ibnulqayim ee amhilada la tiriyaa maanan arag qolana halkaasay u gebagabaynayaan rag baaxifiinta ka mida baa waxay nugto ka hadleena in daabit ama xad go-an loo kala sameeya maxay u adkaatay waxa adkeeyey muxuu yahay waxay yidhahdeen waxaa adkeeyey acmaashan la samaynayo marna niyaadkaa la fiirin oo inama alacmaalu binniyaati waay iyo maqaasidaas saamaynaya hal ficiloo la sameeyey baa qofna cibaado u noqonaya qofna uu ku dambaabayaa qasadka kala duwan darti oo inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli mriin maa nawaa niyaadkana dabcan dee wax la wada ilqayn kara maaha mar labaadna acmaasha laftoodaa kala duwanoo wax qaybsami karoo wejiyo badan yeelan kara iyo wax hal weji keliya leh bay isugu jirtaa waxaasoo dhan haddaba hal tacriif iyo daabit in la isugu keeno sababtaasay u adkaatay nimaya waxaad yeeshaan tusaalayagu isaga ekaada cilladda adkaysay bay isku dayayeen bal inay dhiraandhiriyaan waxaan uga jeedaa intaa inaan iraahdo intaa tusaalayawiya aan sheegay xaddii daabitka ahaydna culimmadiibaa laftoodu meel ku dhammayn la meesha culimmadii ku heshiin lahayiin horta dalabatulcilmiga yeeryari inay isku dhex tuuraan sax maaha meel culimmadiiba meel ku wada dhammayn la-dahay aduu dhalaq inaad isku dhex tuurtaayo meesha kuma jirto cibaadaadkana qayb waxaa ka mid a hadhow daabitkii iyo tacriifkii la dooniba ha loo sameeyo ama kii aad dooniba ha kula rajaxmo qayb waxaa ka mid a min jinsi shirki alasqara wabittaali in ilxukmu ilaa lilaahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu in kufri akbara ay tahay kuma cadda adigoo u daliishanaya cibaadaa lagu sheegay keliya kuma filla inay kufri akbara noqoto kamana caddaanaysa aayaadkii dambe ee ama suuratu nisaa ama suuratu lmayda intaas waxaan kaga baxayaa tacqiibaadkii walow qaybo kale oo falaa warabbikii ay jireen laakiin waxaan rajeynayaa munaasabaad kale ay kusoo noqon doonaan haddii aan la yidhaahdo qaybta maanta aan raba inaan ka hadlo miyaan israacsadaa ayib qaybta maanta aan raba aan ka hadlo waxaa weeye su-aasha maalinkii horena soo noqnoqotay aniguna aan iri xukmu bikayri maa anzala allahuna waa masala caama ah masaladan qawaaniinta iyo haddii la yidhaahda tabdiilkuna waa masala khaasoo jus ka mida waay xukumka caamkaynu ka hadlaynay laakiin masaladaa juskeeda markaynu ka hadalno baan wax ka dhihi doonaa masaladaasaan rabaa curfiga culimmadeennii hore sharciga saddex baa loo qaybiyaa sharci munazal ah oo kitaabka iyo sunnada ah sharci mu'awal ah oo ijtihaadaadka iyo tafsiirka culimmada ah oo yukhti wa yusiib ah ta'wiilkooduna marna dhowaan karo marna fogaan karo oo qaybta khataa'ihi ay darajaad kala duwan yeelan karto iyo sharci mubaddel ah oo la bedelay oo kii horeba aan ahayn mas'aladaas ay saddexdaa u qaybiyaan baa cibaaraadka rag badan oo culimmadii horaa ba aada ugu soo aroorta waxaa kaloo sharciga mubaddelka ah ay ku soo aroortay nusuusta qur-aanka qaybo ka mida markii ahlulkitaabka iyo kutubtii loo soo dejiyey laga hadlayey inay kitaabtoodii taxriifiyeen ama ay bedeleen waxay nusuusta shariicadu ina bartay ahlu kitaabku bedelkay diintooda bedeleen bedel 100% boqola ma ahayn qaybay bedeleen walidaalika waxaa layna yidhi laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum
ha wada rumaynina hana wada beeninina maxaa yeelay haddaad wada beeniso qayb xaqii baqaayaa iyo hadhaaka ah inaad beenisaa laga yaabaa haddaad wada rumaysana been gadaal lagaga daray inaad rumaysaa dhici karta marka salaamadu maxay tahay ahlu kitaabku hadday idiin yimaadaan oo idiin sheekeeyaan falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum miisaan khaarij aad u baahan tahay nusuus kale oo sharcigan aad u bandhigto in waxaanuu been yahay iyo inuusan been ahayn wixii sharcigii waafaqee sharcigeenu rumeeyana waxaa u badinaynaa inuu sharcigii xaq ahaa baaqi ka yahay wixii sharcigeennu beeniyey inay bedeleen baynoo sheegana war waa beentiin baynu dhahaynaa wixii laga aamusana waynu ka aamusi walidaalika culimmadeennu waxay yidhaahdaan kitaabkan towraad iyo injiil baa la isugu geeye la yidhaahdo qashin in lagu tuuro lama ogola sababtoo ah haddaad ku tuurto in badan oo baatila weeye laakiin in baqaayaa xaqaad qashin ku tuuri kartaa inaad marka kala saarto si ilaahay baa ahlu kitaabka u kala saaray wa minhum man in taamanhu biqintaarin yu-addihi ilayk wa minhum man in taamanhu bidiinaarin laa yu-addihi ilayk inaan la ysku wada qaadin oo la yswada raacin sharciga mubadelka ah haddaba kuwii hore ummadihii hore kitaabkoodii way bedeleen sharcigeenna islaamka markii dawaa'ifteenna loo soo noqday sharciga mubadelka ah 4 daa'ifo 4taba way sameeyeen culimmaduna horay uga hadleen daa'ifo way sameeyeenoo qaanuun iyo qaacide kulli ah oo sharciga ka xoog badan oo kitaab iyo sunno wixii ka hor yimaadaayey bannaanka qashinka lagu qubi iyaga hadiya goor la hormarin bay dawaa'if 3 ama 4 samaysteen walidaaliku 4taba xaafid ibn alqayim fii madaarij saalikiin 4taba wuu isdaba dhigay khulaasadiisuun baan sheegi doonaa insha allahu tacaala inta kalena isagaan idiin celin qolyo mutasawifada ka mid ah suufiya oo dhan maaha qayb ka midihi iyagu xad la yidhaahda dawq iyo mukaashafaad qaanuun ay samaysteen oo kulli ah oo kitaabka iyo sunnada ka horeeya aayad kastoo timaada iyo xadiid kastoo yimaada waxyi kastoo la akhriyo waxaa shardi ah inuusan ka hor imanin qaanuunka kulligaa ee kashfiga iyo dawqa ah waxaa diinta waxyi kitaabka iyo sunnada un la qaadan intaa markayna ka hor imanin 2 nin aan hadalkooda soo guuriyo mid abu xaamid alghazali fi lixyaa midna ninka la yihahdo maxamed asanuusi kitaab uu leeyahay oo darajaatu ahli lyaqiin uu kaga hadlo iqaadu lwasnaan la yihahdo ghazali wuxuu leeyahay qolyaha sifaadka ta'wiiliyey iyo kuwa diiday buu ka soo hadlay oo xanaabilada wuxuu ku tilmaamay jumuud aad inay igu adag yihiin ta'wiilkay diidayaan qolyo muctasiliyana ta'wiilkeena ka badbadiyeen wuxuu yidhi miisaanka in la saaro ay tahay lagu kala saara muxuu yahay waxaddu liqtisaadi bayna hada alinxilaali kulih wa bayna jumuudi alxanaabilati daqiiqun ghaamidun laa yaطalicu calayhi ila almuwafaquuna aladiina yudrikuuna alumuura binuurin ilaahiyin laa bisamaaci xadda lagu kala saaro waxaasoo dhani waa mid aada u qoto dheer oo qarsoon buu yidhi meel cidhiidhi ay ku jirtaa waxayna tahay buu leeyahay waxaana ogaada oo keliya dadka ilaahay waafajiyey xaqa oo wax ku eega nuur ilaahay oo qalbigooda ku dhacay laakiin samaac waxyi kitaab iyo sunnaan wax ku eegin kadib uma ida nkashafat lahum asraaru lumuuri calaa maa hiya calayhi nadaruu ila asamci waalalfaadi alwaarida markii nuurkaa qalbigooda ku soo degay wax walba suu yahay ugu ogaadaan bay wixii alfaada kitaabka iyo sunnada samciga ku soo arooray bay fiirfiirinayaan buu leeyahy kuwaasay miisaamayaan famaa waafaqa maa shaahaduuhu binuuri lyaqiini qararuuhu waxay nuurulyaqiin ku arkeen wixii waafaqa meeshiisay u deynayaan wamaa khaalafa awaluuh wixii ka hor yimaadana meel kale u leexinayaan halkaasay la aadayaan fa amaa man ya'khudu macrifata hadihi alumuuri min asamci almujarad qofkiisa yidhaahda arrimahan waxyiga aan maqlay ee kitaab iyo sunnada ee dhegteeda ku dhacay keliyaan ka qaadanaya falaa yastaqiru lahu fiiha qadamun walaa yatacayanu lahu mowqifun cagna meel kuma hayn kara meel loogu soo hagana yaalan maayo yiri ninkii yidhahda waxyi keliyaan ka qaadanayaaye kashfigii iyo nuurkii ku salayn maayo haddaba miisaanka wixii waafaqana la qaada wixii ka hor yimaadana meel loo leexin
اللي باكن كقل ليه وكشف إلهي ينورك سنوسي سونا درجة أهل اليقين مركو كهل هيو تلماما يا إيجي وهم الراسخون من أهل التمكين كفاهم عن طلب الأحكام ما آتاهم ربهم من العلوم الدافقة على سرائرهم المطابقة لعين ما شرعه على لسان رسوله تنزلا لا نزولا وحوليه هي أحكامته إني الضلبضان علمي برتان وحي كجمار من نور كعلمي حق إلهي قلبي وذو كده شيء علمي وحي شرعي إني برتان كجمار من بقول يقول بحنا بالكتاب يصنع هيك برتان هو بحنا بقول مالك عليك قاتل فكان بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي قال كذا حيد عن قلبي قال ربي يجا شيء نكرد مقالة فوق هذا فعلا الله يتلفون كيس وبعضهم يسأل عن الشيء قال كون نحبال لو يديه فيقول حتى أسأل عنه جبريل قال نمركي وحلا ويديه وحلا يسوق عن جبريل سوى يديه وحي النبي يكسو دقيقة وكانت تصومها وارجع الكاسو قارسيه فحكمهم بما كشفوا حكم كودو وحي مكاشفة كجارين وي وعلمهم ما من بحر المواهب اغترفوا علم قوضنا وحي مواهبتا كهلين واي فطريقهم عن التقليد شاسعة ومناهج يقينهم واسعة يقول التقليد يعدبا وحلقة قاتي كالكفك يقينتي وحي هباني هيان آد بواسعته وبضانتهي وكيف يقلد من امتطى من اليقين داره نك يقينتي بقاري محو التقليد سنة وعدك لو حقا قادا كتابك السنة لفته وتقليد كدري محو الكذب وما أحسن ما قيل في هذا المعنى ومن يسمع الأخبار من غير واسط حرام عليه سمعها بالوسائط نك إلهي وطوس غمق لك أخبارتي عدك لا ينومر حرام بكته لمن هالكاسة يستاقين ووحي قرار بان وحي كهر مريين كشف قضية يقين تودي بكاسة علومه كم مقعابين طريقة ذوذا الشرع المبدل قال الله بعد وأن منكي فلاسفة هايو متكلمينتي يقنا قانون عقلي أي دجستين يدهن قانون كاسا أساسه قرآن إيا السنة كما هو من كران وحي كهر ما يجي ما دوال لقبي أما ما لقول لقوم مدح اللو قليو كلا اللو الرادين جويني با كميدة في الإرشاد رق بدن با كميدة غزالي با كميدة مناسبات بدن إحياء كله قانون التأويل كله هل نص أن سوق هذا محمد بن عمر الرازي في أساس التقديس كجري وحكاه الله إياه عقليات كذا هي قرآن يا سنة هذا يسكهر يمادان كيف أصله أو يتهي علن كإن لو تاجو شتك الله بنيه يساتها إنه وضد كل حذوه لقى إيتال رؤية وحليه اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك وهذا قاعد تقولي أدلة عقلية الله هو هذا وحينو تشير شيكتو وحبا سيدا هذا كدمنا كتاب كي السنة دي أدلة أساليب لغوسو قوريي وسيدا كدو أنت الماما يا أن أرقنو فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة أفر مذن بين قنبور إنان سمينو أرشارات ما بيشرتو تكوباد وحول إنان لبضا بوضا الرمين يقو اسكوهر منايا والنقيضين قادنو مانا دعي كارتبوري لبا اسكوهر منايا لبضا بوضا الرمين صح معها إنان لبضا بديدنو وريانا الصحة إنو دعي كرين sababtoo naqiidaynka waxay ku magacaabaan mana wada joogi karaan mana wada bixi karaan la yajtamicaani wala yartaficaani way mustalahaadkoodii xaaladda koobaad inaan wada rumayno sax maaha xaaladda labaadna inaan wada tuurno sax maaha maxaa soo haray xaaladda saddexaad ee soo hartay waxaa weeyaan buu yidhi inaan adilada naqliga ee sharciga ee waxyiga qaadano caqligana tuuro oo leeyahay وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وهو باطل إن النقل يا كتابك يا سنة الرميسان عقلي أنا الدين وأنا باطل وحبا كما تشيران له كذبوا صوابته يرسيش الحياة وحيد ولما بطلت الأقسام الأربعة إلى الثلاثة هيد بنوم علينا يا لكن كان عادي أفرط عم السد حدي كلام مركي ماشى كبحين لم يبقى إلا أن يقطع
bimuqtada dalaa'il alcaqliyati alqaatica caqliga inaan qaadana keliya soo hartay buuri ilaa inaan caqliga ka tagno qur-aan iyo sunno qaadana baatil wayuu yidhi maxaa soo haray inaan caqliga qaadano qur-aanka iyo sunnadii maxaan ku samaynaynaa wey markaan intaas samayno qur-aanka iyo sunnadii laba midun baan dhahaynaa buuri oo imaa an yuqaala inahaa hayru saxiixa wax jiraba maaha inaan nidhano oon tuurno oon qashinka ku darro bidaliil caqligan ee ka hortimid baa ku garan waxan beenba inay tahay imaa saa inaan dhahno aw yuqaala inahaa saxiixatun ama way jirtaa waa suganta intaan dhahno ilaa ana almuraada minhaa hayru dawaahiriha laakiin sidan ay tahay loogama jeedo si kaluunaan nidhaano kadib see looga jeedaa marka la yidhaahdo kuma qasbanin buu leeyahy inaan fasiro oon meel saara kuma qasbanin laakiin haddii aanu ka hadallo washtaqalnaa calaa sabiili tabaruci bidikri tilka ta'wiilaati cala atafsiil inaan saasaa looga jeedaa sii faahfaahino haddaan ku tabarucno kuwa sadaqaysano on iska samayna iyadoon ku qasbanayn waan samaynaynaa haddii uusan ta'wiilka meel la noo qaban waayo oo meel la geliyo la waayana ilaahay baa wuxuu uga jeeda garanayaan dhahaynaa xagga ilah baan isaga tuuraynaa wy lakiin wax macno ay leedahay oo la tix raaco lagu dhaqma yeelan mayso intaa markuu yidhi halkan u dambaysa dhegeysa marka wuxuu yidhi fahada huwa alqaanuun alkuliyu almarjuucu ilayhi fi jamiici almutashaabihaat qaanuunka guud ee wax kasta oo isku dhex darmada ama mugdi gala in lagu kala baxa ay tahay tan waay qaanuunka caqligaa waay asharcu lmubadel waayde kitaabka iyo sunnadii meel baa la dhigay baakin baa la geliyey jidka ma istaagi kartana ka leexda le mar dee adila alcaqliya alqaatica timaado idinku leexda meeshiini ma aha halkaasaa nusuus badan lagu tuntay marka culimmaduna waxay ku dareen nooc labaad oo sharcu lmubadel la yidhaahdo axkaamta aan sheegi doonno labadan noocba waa soo gelayaan oo markaynu wax xukumayno sharcu lmubadel oo dhan baynu ka hadli doonaa baynu xukunka ka hadli doonaa waayo waxa loo kala qaada sharci mubadela ma jiro qolada saddexaad asxaabu siyaasaati walwilaayaati waay niman xukun iyo jago haysta oo marba iyagu xeerka iyo nidaamka ay rabaan dejisanaya hadba inta uu la ekaaday iyo qadarku gaadhaba qaab maamul iyo dhaxal ha u dejistaan qaab dhaqaale iyo itaawaad iyo cushuur uruurintood ha u dejistaan qaab haybad iyo jidad loo qaabila ha u dejistaan qaab xukun iyo maxkamad iyo dadka xerar ay ku laayaan ha samaystaan qaabkan hadda innaga qawaaniinta wadciga een sheegayna ha yeeshaan iyaguna dee sharci meesha waxba uma yaallo qawaaniintan ama ingiriis ama faransiisa laga keeno inta badan faransiis iyo awstriyaanka laga keenaae kan ingiriiska ee ugub iyo curadda leh badana lama soo qaato saddexdaasi kitaabka iyo sunnadii baakin galay wada yidhaahdeen walidaalika ibnu lqayim fii madaarij asaalikiin buu masaladan kaga hadlay wuxuu ka hadlayey muraaqabada ilaahay muraaqabadiisuu ka hadlayey darajaadka muraaqabada markuu ka hadlayey wuxuu ka mida buu yihi muraaqabatu nadari alxaqi birafdi almucaarada ilaahay inaad ku muraaqabayso ood kaga cabsato inaad sharcigiisa ka hor timaado ka hor imaadka sharciga laga hor yimaaduu ka hadlay waa imisa nooc saddex buu ka dhigayaa marka wuxuu hi walictiraadu halaathatu anwaacin saariyatin fi nnaasi walmacsuumu man casamahu llahu mina diidada sharciga laga hor yimaadee la diida saddex weeye dadka caadi uga dhacda cid ilaahay ka badbaadiya maahane nooca koowaad wuxuu ka dhigay yaana ku dheeraane aqiisadii caqliga ahayd buu ka dhigayo hadalkoodu aada ugu dheeraaday nooca labaadna wuxuu ka dhigay oo wuxuu yihi qoladan koowaad alictiraadu calaa asmaa'ihi wa sifaatihi bishubahi lbaatila alatii yusamiihaa arbaabuhaa qawaatica caqliya caqli lahuba ah tii haddaan raasi ka soo sheegaynoo kala waay qolada labaadna wuxuu yihi annawcu athaani alictiraadu calaa xaqaa'iq aliimaani waasharci biladwaaqi walmawaajiidi walkhayaalaati walkushuufaati albaatilati ashaytaaniya kashfi baa ii daahiray iyo xadathanii qalbii can rabbih baatil oo sharciga ka hor imanaysa bay qolana ku dhegeen buu yihi oo iyagana doodoodii iyo qaabkay u hadleen buu soo bandhigay qolada saddexaadna markuu sheegayo wuxuu yihi annawcu athaalith alictiraadu calaa dalika biasiyaasaati aljaa'ira alatii liarbaabi alwilaayaati alatii qadamuuha calaa xukmi illaahi wa rasuulih
وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده تنكش شغلنا تاسو ما هدنا وكرجة سياسة هي حكمنا هيستا أو حيابها السياسة هي معمول الذي حرر كيدجستين ويكهر مريان كي الله يا رسول كيس ودومديس أي كحكمان وشريعة إلهي يا حدوديس يا عدالة ديس مال جارة دجان أنت شغلنا صوت اسمه صوت صفات اسمه لها سدح عفرتي قلوك سدح قلوك هذا مرك وسوق خلاصية وحول فقال الأولون إذا تعارض العقل والنقل أيهما يقدم قدمنا العقل عقلي يا نقلي كتاب السنة ديسكوري مادين قرأ وحيد إن كان هرمرنا عقلي هرمرنا وقال الآخرون وحير هذين إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس قياسي الرأي عقلي هدي ديسكوري مادان دليل لسوغوري قياس كيان هرمر صنينا وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد والكشف كواس هرمر وقال أصحاب السياسة إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة سياسة هي معمول كي حرر كي بانو هرمرينا انتي ما هل كانوا يسوقوك كاني وهي شرع المبدل وهي قلب البابا قانونية قاعدة كلية oo sharciga ka awood badan nusuusta waxyigana ka horeysay samaysteen oo baabka iyagu ay ku jireen waayo kuwan siyaasadu aqeediyo aqliyaadiyo dhawqiya kashfiya ma galaan iyagu badooda ma adeet waxay ka shaqeeyeen taama kuwa kala ma galaan baabkoodii maaha qoro walba baabkoodii bay waxyiga ka awood badan diinta Ilaahay samaysteen dadkaasna waa dad wada muslim sheeganayo tukanaya waa oo qameel waliba in badan oo culumaha dhaxboodaysa إمام وين بكن حمود المال والبا يهدي الله بعد تصبح يا كتاب قرب كلا قوة تدحي الله أريد حصاول يدي بروتك دونا مركز وحير من قيم هذه فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه شرع إلهي وحي كبر برد كسهر تشيديين بوري طاغوت يحكم تغان فهؤلاء يقولون لكم النقل ولنا العقل والآخرون يقولون أنتم أصحاب آثار وأخبار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار وأولئك يقولون أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقائق والآخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسة قالوا البهالكاسي تاغن طاغوت يتحاكمون إليه هذا حكى لنا سوى قوانينته طاغوت يتحاكمون إليه ما مركب السلام طرح هذا كجملة جود أهان مع عصبة ابن القيم مركز التعليقية وحيري فيا لها من بلية عمت فأعمت ورزية رمت فأصمت وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون وأهوية عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون عطلت لها والله معالم الأحكام كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كيس هذا ابن القيم رحمه الله تعالى وحان رجينا إياه إن صدح ذي أن شيء إني هذه لا سعوتان لأنه هذا الكمركو انت عليه يكذب حكمي وحكموا على الله بين وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل والدين وقفا على كل إفساد وتبديل كاسو كوكا بقى ابن القيم هذا الكيس هذا وحن شيغاني إن انت عم يكدويه طيب استغى انت أكدب ما حكمين لكن هذا الذي سحبان لقد كان كراه لعله تركه لأجل يعتمدون على التأويل وانت حبان كتل ما بدونا مسائل كاس قضب كحيقة حكمك قوانينتن انت انا حكمك كهلين waxaan rabaa hal mas'ala inaan dhowr arrimood inaan ka hormariyo si qaabka xukunku ku imanayo ay u cadaato ahkaamtan qawadciga ama sharcigan mubadalka bi asnaafi markaan xukumayno
وحلان هرت مركا كوباد الشرع المبدل كاه جزء عموما الحكم بغير ما أنزل الله قال يوي محاير ما أنزل الله بحق غير ما أنزل الله حكم بأنزل الله مسائل كاعتقادية يا معاملات كمالية يا علاقات كأسرية يا قوسك يا عقوبات كجنائية يا أخلاقيات كيا سلوك بوقلية كوا النقلة وربا جزء معين وهي وحي أدج ستيه وح كل يحكم بغير ما أنزل الله ودن صور كيسي كمان هذا صادرت حكم كان كهذا لأنه وحكم جزئية ذا قال كان كهذا لأنه عقومهم الحكم بغير ما أنزل الله كما هذا لأنه هذا ما ننتهي عام كهذا لأنه والله إن صورة خاص كما هذا لأنه ما أنت صورة خاصة كهذا لأنه وحكمت عن شيء دوناي معها بغير ما أنزل الله ودن معها طبعا قد يدر كمان ربنا براروجيو طلبات أحكامتها إنه كهالليناي أوصاف بيلاذهاي أحكامتنا أفعاشي يا أعماش ضدك يا أقواش وذولا صفات كإليهين بأحكام قاتان سوى مجرد فعل كحكم ما يش ولذلك أحكامته وحال إلى هذا صفات الأفعال واي فعل كان صفة وقاضنا يما ويان ما هني فعل كلافتي سيا ذاتي سماها ساسترتد أحكامته هذه الصفات كلا دوان لا هاي أحكام كلا دوان إني قاضته وبذ والبجز والبحكم كي صلى سيو يدنا والله مارمان قولك صدحان ربنا براروجيو آيات كحكم بغير ما أنزل الله سورة المائدة هي سورة النساء هي غير كود كيمد جزئيات عن كهر لينه هي جزئيات ككلابة ويسوق ليان ولذلك كان أصح القولين إلى الصور كاسو دنك كل من يسو صادرت مرنا كفر أكبر نقونيسو مرنا كفر أكبر أصغر نقونيسو حالات هي الصفات كلا دونا لغو كلا دبقا أيو أي جماهير أئمة العلم والسنة وتقل قلب كأفراد ينربو إنا براروجيه وحاوية فهم كنا وحا مهمة إنه فهم كالسلف كأساسه هذا وحالنا كتاب السنة وحين فهمنا على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم يرقي خير كبناء أئمة السنة وسو يستاغي لأنه التنزيل كي يغا إنو قدوا علم يا أقونتنا يغا إنغانا بنا إنغانا قطة ديرا دين تهديل لي هذا هلو قيرو ذنا يغا إنغا قيرا بنا دين كمان نقان وغمانا قيرا بنين وحيغانا وغما دوين صادرت وحا أساسية مرجعة عالمكم مدى مسلم كويسا سو خلافتي تاريخ دير بونا خلاف كسو جري نصوصتا وحيغونا مانتا يشالي مسو دقين كهذا الكيدونا مانتا يشالي ما باللابن فهم كأساس كمعتمد وكي سلف كفهمين إنه هدي فهم إنو صوبحو وإيجا كودا إنكم يعني كانوا ميزان كماها كان إنو سحين يهي إنو خلدين يهي وإن لقم ميسامو موافقي فهم كي سلفك أو أقل شيء إنو خلافين واحد هدين المسألة هذا اللي كهدين لهينين مركا فهم وكاغا موقن كرا هدين لكن فهم أي كهدين ويهي فهم كذا وإنو خلافين ولا يابا بداعي ودن بك وقت كلان شوقنايو زمن كلان شوقنايو مسائل كوان كهدلي دونا waxbaa isbedelay waxaan jirin baa yimid waa ka hadli doona ya aatharteeda laakiin asaasku fahamka nusuustu waa siday salafku u fahmeen baa faham kasta oo khilaafo tafsiirka nusuustu waa faham maqluuta way nusuusta sharcigana de waxay aan jirin iyo waxaan xilliga jirin deeyna uu ku soo kordhin mayno qodobka shanaad aan raba inaan xasiyo waxa weeye أئمة جماهير أئمة السنة في كتب العقيدة والتفسير والحديث آيات كان حكم بغير ما أنزل الله يما إذا مركا يفسر أيان جماهير توضو لبا التفسير بيمران لبا التفسير كلي مران كدي وحينو إيجي دونا إنك الصورة إيروم موقتاي لبا التفسير كيبا أودو علماء طريقة أي مرين جمهور أئمة السنة وحن جمهور أولي هاي هدان هالما موادي ويدين دونتان لما تفسير بين مرين إما إن لي هذا آيات كاني قوم شرعي مبدل السميي
oo juxuud iyo cinaad iyo istixlaal sameeyey bay ku soo degeen kufri akbarayna saa darteed tilmaamayaan culimmada qaar baa maray waan ikhtiyaarka ibni jariir الطabri raximahu اllahu tacaala markaan halkaa wax ka tafriicino baan naska qowlkiisii keeni doonaa xadiidka baraa bni caazibna ee fii صaxiixi muslimin ahna iyo kayrkiina mas'aladaa tafsiirka noocaasa wuu ayidayaa say aayaddu ku soo degtay markuu sheegayo iyo dadkay ku soo degtay iyo qaabkay waxu dhaceen tafsiirkaa culimo badan baa martay oo mustaxilka khilaafna kama taagna mustaxilka iyo istikbaarka iyo markay noqoto inay kufri akbara tahay intabi haddaba hal nugta ku baraarug haddii la yidhaahdo mas'aladan lilcinaadi walistikbaari bay u noqotay kufri akbara macaasida kabaa'irtoo dhan baa istikbaar iyo istixlaal markuu yimaado loo idaafeeyo kufri akbaray noqotaa marka min jinsihaa buu ishaarayaa hadalku sariix kuma aha tafsiirka labaad ay qaar mareen waa ayadaha in kufri asqara in lagu fasiro oo qowlkii ibni cabaas la qaato waana sida loo badan yahay abu cubayd alqaasim ibni salaam fi liimaan buu ku sheegayaa waxaa sidoo kale aayadda saa ku fasiraya imaam axmed ibni xambal kamaa yarwiihi alkhalaalu canhu fi sunna khalaal ardada imaam axmed buu ahaa akhbarana abu cabdillaahi buu ku ohanaya waxaa sidoo kale ku fasiraya maxamed nasr marwasi fi tacdiimi qadri الsalaa waxaa kaloo sidaa isna qaba khalaal fi sunna ibnu bata fi libaana iyo khalqun laa yuxsawna min aimati الsunna halkaasay marayaan ragga dambe mutaakhiriinta ahna wax kanna waa u badanayaan ka kalena waa soo aroorinayaan sida ibnu taymiya iyo ibn اlqayim iyo ibnu qayim isagoo herar wuxuu gaaraya caamatu saxaaba uu yidhaahdo saasay qabaan uu yidhaahdo ibnu taymiyana ibn cabaas wagayruhu waaxidin min asalaf buu ku dhihi dabcan taawuus iyo cataa iyo rag badan baa laga warinaya labadaasaa jamhuuru aimati sunna ay mareen markaan saa leeyahay waxaan rabaa inaan tilmaamo qaar baa waxay yidhaahdeen gaaladay khaas ku tahay qaar baa saa yidhi aathaar baana lagu wariyey qaar baa waxay yidhaahdeen aimad salafkii raggii hore waktigaa ka mid ahaa cumuumu laxkaami in la wada sameeyaa looga jeedaaye qaar haddii la sameeyo aayaddu kama hadlayso sida cabdilcaziiz ibn yaxya alkinaani saaxibu lxayda laga soo guuriyo baqawi fi tafsiir iyo keyrka ay kaga soo guuriyaan marka waa aqwaal dad yaryaroo farakutiriisa laga soo guuriyo qodobka lixaadeen rabo intaana xukunka hoos ugu degin inaan ka hadla waxaa weeye masaa'ilkan sharcu lmubadelka ah haddaan tafsiirka xaaladda dambe qaadano ee jamhuuru aimati sunna ay u sii badan yihiin xaaladdan xaalad jirtay ma aha waa nawaasil gadaal ka timid waa nawaasil gadaal ka timid haddii nawaasil laga hadlayana oo ragga qaarkii aynu niraahno waxa ugu badan ay soo bilaabatay ee lahaye ugu horeeya xilligii tatarkay ahayd oo yaasiqi iyo jengees khaan iyo halka ibnu kathiir sida bidaayaya tafsiirkaba ku sheegay aan u tiirino waxaan leenahay waa naasila gadaal ka timid oo u baahan ijtihaad meesha ay gelayso ama min baab ilqiyaasa ku gasho ama min baab aan niraano siyaqulcumuum bay soo hoosgelaysaa aan raadino naasilo gadaal ka timid oynu ku magacawnay naasilo aan waktigii hore jirin ma noqon karto wax nasku sheegay cad ma noqon karto naska laakiin waan guda gelin karnaa bidarbin min alijtihaadi nooc ijtihaada haddii aan niraahno sidoo kale nimankii waxay sameeyeen ee istixlaal buu ahaa saasayna aayaddu ku soo degtoy kufri akbara ku noqotay suuradan labaadna inaan cinaad iyo istikbaar iyo istixlaal ka raadino bijaamici lcilatina qiyaas ama qiyaasu lowlaa walow binafyi lfaariq aan ku ilxaaqina midkood bay noqonaysaa saas darteed mas'aladu darbun min alijtihaadi bay inala gelaysaa markaynu xukumayno walijtihaadu yukhtiu wa yusiib laba iskuma heli karna marka inaan niraahno aharka ibni cabaas
xaalad jirtay markaasuu ka hadlayaye daahiradan iyo naasiladan guud ee rafdu shariica maba jirin saa darteed aharka ibnu cabaas laguma dabaqi karo iyo inaan fii nafsi lwaqti niraano aayadda lafteedaa sheegtay oo ku cad marka ibnu cabaas ma fahmin waayo ma jirin mehe muuna fahmin waayo ma jirin mar inaad dhahdo marna aad tiraahda aayaddaa ku cad labadaa isma qaataan laakiin ninka qabaay imaa way ka hoos baxday farqiga labada eray u dhexeeya iska hor imanaya wa imaa can qasdin buu laba mowqif oo kale fog ku sheegayaa si warkan inuu iska hor imanaya aadan ugu baraarugin intaa kadib waxaan leenahay nawaasisha cusub baan ku celinayaa mar kale nawaasil cusub markay timaado waxaa dhacda baabulqiyaas iyo marka la joogay ilxaaqa inaad mar tiraahda binafyi lfaariq wax ay kaga duwan tahay ma jira boqol iyadoo kale waaye saa darteed xukumka way la siman tahay way dhici kartaa inaad tiraahdo min baabi qiyaasi lwlaa weeye tanaaba ka sii mudan xukunka falaa taqul lahumaa ufin waalidka markii layna yidhi haddii layna yidhaahda hala garaaca ka waran waxaan leeyahay nasku ma tasriixinin laakiin ha ufa ku dhihin waalidkaa wuu dhibsan sow maaha garaac iyo gacanqaadkuna kaba sii darandi inaad 5 xabadood ku dhufatana kaba sii daran tanaa ka sii dembi badan oo ka sii weyn haddaan idhaahno agoonka xoolihiisa ha cunin walaa taak amwaalal yataama ha cuninaa layna yidhi xoolihan uma cunin laakiin dab haddaan ku gurano cunitaankaaba dhaamo cid baa ku intifaacday itlaafkiina waa yahay cidnana kuma intifaacino idaacatlmaal baa usii dheer qiyaasu lwlaa weeyaan dhahaynaa waynu dhihi karnaa min baabi qiyaasi lwlaa weeye waynu dhihi karnaa laakiin yabqaa qiyaasan waijtihaadan khasmiguna markaad nafyulfaariq dhahdo farqi baa u muuqan kara adiga awlaa iyo cillo markaad ku jamcisana maanic iyo qawaadixulcilalkiibaa u muuqan kara marka adigu haddii aad xukunkaa gaadho xukun mucayana biijtihaadika masaaxa min alkhilaafi inaad aqbasho waayo masaaxa min alkhilaafi inaad aqbasho waayo laakiin labaha isku darin naskaa ku cadiyo waa naasilo gadaal ka timid oon xilligii nebiga jirin dee labadaa isma qaataan naasilo gadaal ka timid ijtihaad iyo ilxaaq bay u baahataa masaladan qodobka xigee 8aad aniga sida raajixa ila ah sawaabka ila dhow tafsiirka ibn jariir الطabari in la ilxaaqiyey calaa sabiili اlcinaadi waljuxuudi ahaa bay daahiradan sharcu lmubadelka ah ama qaacidadan dawqa ah ama qaacidadan caqliga ee kalaamiga ah ama qaacidadan siyaasaadka ee qawaaniinta ah inay jinsi lkufri lakbara tahay baa raajixila oo ay gelayso jinsiga shariicadoo la rafdiyey iyo istikbaar iyo cinaad iyo juxuud ay gelayso iyo istixlaal isku dar alfaadaasoo dhan way isku daraane isku meelun bay geeyaan aakhirka waxaana ayidaya oon leeyahay rabaa inaan ku xoogeeyo dhowr arrimood kow xadiidka albaraa ibni caazib ee aayaadka alxukm bigayri maa anzala allahu ku soo degeen suuradanaa ku jirtay oo soo gashay aayadda baraa ibni caazib wuxuu leeyahay nabigay u yimaadeen nin iyo naag yuhuudaa zinaystay in la rajmiyo dhagax lagu dilaa kitaabkii towraada ku qoray iyagana waxay jidaysteen in jeedal iyo shaabuug lala dhaco wax madow iyana la mariyo dameerna la saaro oo magaalada lagu wareejiyo arrintaasi say ku timid ma ijtihaad mar iska dhacay buu ahaa maya arrintii waa la kashifay iyagii baa la keenay faatuu bitawraati baa la yidhi cabdillaahi ibni salaam baa yimid wuxuu ku yidhi ilaahay baan idinku dhaariyey towraad rajmi kuma qorna miyaa nin baa wuxuu yidhi hadda mar haddaad i dhaarisay runtaan kuu sheegiye way ku qoran tahay waxaa la yidhi maxaa idinku kalifay wuxuu yidhi marka arrintaasi kahura fii ashraafina dadka yagii odayaasha iyo madaxda ahaa yay zinada ku badatay fa kunnaa idaa akhadna shariifa taraknaa wa idaa akhadna daciifa aqamnaa calayhi alxad nin miskiina markii la qabtana xaddaa laga oogi jiray nin madax iyo oday iyo ugaas iyo suldaana markii la qabtana waa la iska dayn jiray arrintaasi markay badatay fa qulnaa tacaalow
warinoo isu keenaan niri buri aanu shirne baasha aynu ka tashanne hawshan saa wuxuuga qaban lahayn oo shir baa la galay falnajtamic calaa shayin nuqiimuhu cala ashariifi waalwadiici hal waxoon dadkao dhan sinaan u marino aan ku heshiinoo dejisano fajacalna ataxmiima waaljalda makaana arajmi wejigan la madoobeynayay iyo shaabuuggan iyo dameer ku wareejinta baan ku bedelnay rajmigii marka masale inta loo shiray oo xukunkii sharciga ahaa la bedelay taxriif ah oo mid kale xukun rasmi ahaan loogu bedelay oo kii lagu bedelay la dhaqan geliyey waaye oo lagu macaamilayo oona laleeyahay kitaab ilaahay wax ka duwan kuma qorna la diidan yahay walidaalika ibnu jariir طabari markuu ka hadlaya hadda wuxuu yihi wa wlaa haadihi اlaqwaali cindii biالsawaabi aqwaasha tafsiirka aayadda ka saxaa ila dhow waxaa weeye qowlu man qaala naزlat hadihi اlaayaatu fi kufaari ahli اlkitaab ahlkitaab gaalo ay kusoo degtay kow lianna maa qablaha wamaa bacdaha min alaayaati fafiihim naزlat inta ka horeysa iyo inta ka dambaysaba iyaga kusoo degtay o ka hadashay wa hum lmacniyuuna biha iyagaana loola jeedaa wa hadihi اlaayaatu siyaaqu اlkhabari canhum aayaadkana say qaabkay u dheco socoto iyagay ka sheekaynaysaa fa kownuhaa khabaran canhum awlaa iyadanay ka sheekaynayso kuwa ku dhex jirto o dhan way ka sheekaynayaan bay ku habboon tahay fain qaala qaa'ilun hadduu qof yidhaahda buu yidhi fain allaha tacaala dikruhu qad cama bilkhabari bidalika can jamiici man lam yaxkum bima anzala allahu ilaahay waman lam yaxkum oo siiqa caam uu yihi fa kayfa jacaltahu khaasan seed gaar uga dhigtay qiila waxaa loogu jawaabayaa in allaha tacaala cama bilkhabari bidalik arrintaa wuxuu ku guud yeelay can qowmin kaanuu bixukmi illaahi aladii xakama bihi fii kitaabihi jaaxidiina qolyo xukunka ilaahay kitaabka ka xukumay inuu xukumay diidanaa oo jaaxidiin ahaa buu xukunkan ilaahay ku camimay fa akhbara canhum anahum bitarkihim اlxukma calaa sabiili maa tarakuuhu kaafiruun wuxuuna inoo sheegay xukunka ay ka tageen qaabkaa juxuudkaana ay uga tageen inay ku gaaloobeen wa kadalika alqowlu fii kuli man lam yaxkum bima anzala allahu jaaxidan bih nin kasta oo xukuma wixii ilaahay soo dejiyey ka taga isagoo diidan huwa billaahi kaafirun gaal way ninkaa diinta ka baxay kamaa qaala bnu cabaasin liannahu bijuxuudihi xukma allahi bacda cilmihi anahu anzalahu fii kitaabi nadiira juxuudihi nubuwata nabiyihi bacda cilmihi anahu nabiyun markuu ogaaday ilaahay uu soo dejiye isdiiday nabi maxamedoos ogaaday in nabi ilaahay oo diiday lamidta haddaba tafsiirka aayadda uu saa u fasiray ibni jariir iطabari baa waxay iswaafaqsan yihiin xadiidkii bara bni caazib qisada nimanka uu ka wariyey inay kas u bedeleen shir iyo go-aan iyo talana ay ku bedeleen kay ku bedeleenna ay dhaqan geliyeen halkaa waxaa ka muuqata daahirka ficilkoodii aayaddu waa juxuud ma dhihine baa juxuud iyo cinaad lagu fasiray waa midda koowaad hadday arrintaasi hal xukun tahay sidaa la yeelay axkaamtii dhammaanteed ama badankeed ama nuskeedba haddii sidii oo kale la yeelo waxaan dhihi karaa qiyaas lawlaa waay min baabi awlaa wa axraa halkaasi qiyaaska waxaan isleeyahay waa ariiqa ugu sariixsane waadixsane la haleeshiin karo arrinta labaad een saawiri waxaa ka mid a culamo aimo badan oo aimatu zamaanina dadka marjica ah oo masaa'ilkan qawaaniinta ka hadlay baa mas'alatu listikbaar iyo cinaadka iyo juxuudka ku tacliiliya xukunkooda aan soo qaata dhowr nin oo aimada mashaahirta ka mida maxamed ibn ibraahim muftigii hore ibnu baaziya ka horeeyey mamlakada fataawadiisa juska 12 qaybta taxkiimu lqawaaniin markuu ka hadlahayey xukm bigayri maa anzala allahu 5 xaaladoodoo diinta looga baxo soo sheegayo ictiqaad buu intii hore ka soo hadlayay ninkii yidhaahda wuu ka khayr badan tahay ninkii yidhaahda waa la mid ninkii yidhaahda way ii bannaan tahay muka ka soo hadlay wuxuu yihi alkhaamisu wa huwa acdamuhaa wa ashmaluhaa wa adharuhaa mucaanadatan lisharci wa mukaabaratan liaxkaamih wa mushaaqatan lilaahi wa rasuulih wa mudaahatan bilmaxaakimi الsharciyati icdaadan wa imdaadan wa arsaadan wa ta'siilan wa tafriican wa tashkiilan
وتصويغا وحكما وإلزاما ومراجع ومستمدات marka la eega buu yiri kan ugu weyn ee ugu ballaaran oo uga muuqasho badan tahay in diida cad ay tahay sharciga la diido cinaad ay tahay cinaadka iyo juxuudku isku macno waa oo iskala weyni ay tahay ahkaamta ilaahay oo ka hor imaadsho cad ay tahay ahkaamta ilaahay la khilaafayo oo waliba maxaakimtii sharciga ilaahay loo ekaysiinayo qaabka loo sameeyay loo ilaaliyay qaabka loo diyaariyay sida asal iyo farac loogu yeelay sida lagu xukumo lagu dhaqmo loo yiri sida ummadda loogu qasbay sida diiwaan iyo marjic iyo meel laga soo xigto loogu sameeyay waa qawaaniintan yiri haddaba halkaas hadalkiisu uu dheer yahay wuxuu ku tacliiliyey inay mas'aladani daahira fi mucaanadati sharci wal mukaabarata mucaanadada iyo juxuudkuna waa isku mid haddaba qowlkaasi halkaa in lagu tacliiliyo aymaa ku tegay ragga qaba waxaa ka mid a maxamed rashiid rida waxaan umay su-aalihiinii baan dhinaca kale uga baxay maxamed rashiid rida tafsiirulmanaarka maruu ka hadlayay aqwaasha culummada aayaadkan iyo qawaaniintan wadciga si ay isu soo galeen bay culimmada qaarkood wuxuu ka hadlay qolyahan loogu cudur daarayo inaanan istixlaal iyo u jeedin markaasuu wuxuu wa ina alcaqla la yacsuru calayhi an yatasawara ana mu'mina mudcinan lidiin illahi yactaqidu ana kitaabahu yafridu calayhi xukman ثuma huwa yugayiruhu biاkhtiyaarihi ويستبدل به حكما آخر بإرادته إعراضا عنه وتفضيلا لغيره عليه ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلامه عقله وحديدي كرايو سووا صورتين جيرين نين كتاب كلاه با كان رميسان هدنا كس بدليه wax kala uga qaadanaya kasna uga jeedsanaya hadana islaamnimadii sii wata nafsu tacliil kaas oo kale waxa iska leh Sheekh Maxamed ibn Uthaymeen majmuuc al-fataawadiisa isna wuxuu ku leeyahay أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أن الخير للعباد والبلاد من شريعة الله أنه الخير برحرك الكل من دين رميسان معها محمد الأمين الشنقيطي baa ka mid ah kama gaara aqwaaltiisa oo fara badan buu isaguna leeyahay oo meelo fara badan uu ku sheegay waxaan qaybtaa ku soo gunaanadayaa xukunka aan xukunnay waa madaahibta iyo aqwaasha laakiin marka loo yimaado ashkhaasta xukunkooda qaacidadii kulligahayd baa loo noqon tawafur shuruuti wa intifaau lmawaanic waayo wax ka farqinaya marka koobaadi ahlulcilmigu qaarkood waa ishaareen وابن عثيمين مركو مسألة كهذا وحجري ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به كان يقال إن هذا لا يخالف الإسلام أو هذا من المصالح المرسلة أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس إسلام كو يدون كو تشهدوا يري يا مصالح ذي ويدين تما خلاف سنة إن يقول يو إذا أداء أقول شيئا بالغا يا أباني كان وحن سماينية شبه إن للزولية وباهن وي سيدي مكاشفات كشبه وباهن للزولية qawaaniinta caqliga ee mubadalkaana ugu baahnayd baytanna hadday shubaha qofka ka jirta zuulin ugu baahanaysaa waa midda labaad ee waa qaacidada mutaridka noqon karta ee baabul wuquuci fi lmukafiraat tanna wax ka farqinayaay inta aan garanaya ma jiraan ta saddexaadna dee haddii qawaaniintan la yidhaahdo dawaa'iftii kalena aan nidhaano xujada ha lagu oogo mawaanic iyo shuruud ha la eego kulluna sharci iyo qaanuun sharci mubadala ay yihiin waa tafriiqun bilaa xujatin la kala qaado waayo intaas baan kusoo gabagabaynayaa haddaynu maqrib kadib isu soo noqonayno su-aalo aad qabtaanna maamulkii idinkaa sheegi doono bilahi towfiiq aad iyo aad ayuu umahadsan yahay sheekh maxamed shibli waqtiga waa ina hayaa su-aalo badan waxa laga yaaba inay ka guuxayaan kamana gaarno حلقات دموج بدارك سؤاله هذا كسؤالها قيبت الضنباء يجري دون هذه لا يراد انتهى سيدنا برنامج نقول حريني هاي برنامج واحد سوق القانوني مركز كأبو بكر يحرمتا لقنك آخرينتا أو جامع عمر عيسى وأنا قيبتي لها قيبت هذا يجري دون هذه لا يراد
برنامجكم حين لسه وسيلي أنا جو محمد نوشير أنت إنه كان من لم يسوي ما عندنا وحنا اللي كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.